بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، dhammaantiin waa idin wada mahadnaqayaa, maamul iyo dadweyneba, siiba dadkii soo qabanqaabiyey kulankan iyo dadweynaha tirada badan leh ka soo qayb galayba. intaa kadib, darsiga sidaa lagu tilmaamay ciwaankiisa waxa weeyaan qofka mu'minka diintiisu waxay ka iftaa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa. waxay yidhaahdaan culamaa'i luga, kalimaam الراغب waxa uu tilmaamayaa alkhalqu wاlkhuluqu aslun waaxid. ereyga khalqiga, abuurka ku saabsan, iyo ereyga khuluqa, dhaqanka ku saabsani waa erey quro af carbeed. ereygaasi haddii laamka la reebo oo alkhalq la yidhaahdo, waa muuqaalka iyo hay-adda ama shakliga ama suurada ishu ay aragto ee qofku uu leeyahy. khuluq haddaynu nidhaahnana waxay yidhaahdaan waa dhaqanka iyo sajiyada, dabeecada qofka bini aadamka uu leeyay ee basiiradu qalbigu arko. idan midna ishan horaa lagu arkaa basarka, midna basiirada aragta. si kale haddaynu nidhaahno waxa weeyaan qofka muuqaalkiisa saree muuqda iyo muuqaalkiisa dhabta ah. muuqaalka sare waxaa ka muhiimsan muuqaalka hoose. ولذلك baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه وataعaalى reer nebi aadamow, waxaanu idiin soo dejinnay libaasan yuwaari sawآatikum wariisha, hu astura cawradiinna iskuna qurxisaan. hugan sare aynu xidhanno sababaha loo qaato waxaa ka mid ah inaad kow cawradaada asturatid, laba waxaa ka mid ah inaad muuqaalkaaga ku qurxisid oo riish kuu noqdo. laakiin ilaahay wuxuu leeyay walibaasu taqwa dalika khayr. huga alla ka cabsiga waa huga cawrada qarsoone hoose astura ee dhaqanka ah ee akhlaaqda ah. kaasaa khayra baa ilahay leeyay, kaasaa kan ka fiican. sidaad u eg tahay sidaa tahaa ka qurux badan. haddii dhaqanku uu liito, quruxdaada iyo muuqaalkaaga sare waxba samayn maayaan. walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan iimaanku bay yidhaahdaan, waxay ku tilmaamaan iimaanku waa geed qalbiga ka baxa. cilmigu bay yidhaahdaan waa geedka usuushiisii iyo curuuqdiisii, yacni waa geedka salkiisii iyo xididadiisii uu ku taagnaa. cibaadadu bay yidhaahdaan waa geedka laamaheedii. akhlaaqduna waxay yidhahdaan waa midhaha geedku bixiyo. idan iimaanku waa usuushii waxan ay ku dhisnaayeen, oo haddaan iimaan jirin waxba ma soo baxayaan. cibaadadu bay leeyihin waa laamihii uu geedku tilmaamaya bixinayey. akhlaaqdu waxay ku tilmaamaan inay tahay hamaradii laga goosanayay, waa midhihii. si awgeed buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamayaa waxa loo soo bixiyeyba inay tahay inamaa buciثtu liutamima makaarima alakhlaaq aw saalix alakhlaaq. waxaa la ii soo diray buu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda fiican, teeda suuban, teeda qurxoon. marka wuxuu nebigu ka dhigay
risaaladiisa cilladeeduba inay tahay inuu dhaqanka hagaajiyo. waa midhaha adduunka lagu goosto. idan taskiyatu alakhlaaq aw taskiyatu nafs hiya algaaya alula, waa hadafka koowaad ama ujeedooyinka ugu waaweyn ee saaxibu risaala calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay. inana waxaa habboon markaa diinta markaynu qaadanno inaynu u fahamno inay suluugeen iyo afcaasheen iyo dhaqankeen iyo qaabnololeedkeenna wax ka bedesho. hadday taa wax ka bedeli kari weydo waa diin jaafa. walidaalik ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexda shay u tilmaamay nebigu inuu qabanayo waxaa ka mid ah laqad mana allahu cala almu'miniin ama huwa aladii bacaa fi اlأumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma. ilahay wuxuu leeyahay ilahay kitaabkiisa ku dul akhrinaya, xujo ku oga weeyaan. shayga labaada uu qabanayaana waa maxay? wixii aqbalay taskiyatu nafs in loo sameeyo waa idin tahirayaa oo wuxuu idinka tahirayaa uskaga bini aadamku uu hoosta ku wato. aadanuhu uskaga saruu isku dayaa inta badan inuu iska maydho oo saabuun iyo kariimo iyo waxaana iibsataan oo dhan waxaa rabtaan muuqaalka sare inaad ku qurxisaan. waxaase iib u baahan iyo wixii lagu qurxin lahaa muuqaalkaaga hoosee dhabta ah. kaasaa ah shakhsiyadaadii dhabta ahayd. shakhsiyadaada dhabtaa sidii aad u qurxin lahayd baa isweydiin leh. nebiguna wuxuu u yimi calayhi salaatu wasalaam shakhsiyaddaa inuu qurxiyo. intaa waxa dheer markaa inuu kitaabka iyo xikmadda baro. waxaan leenahay cibaadaadka islaamiga ee ilaahay inugu waajib yeelay طقوس wax la sameeyo inuu haykaloo lala yimaado qura maaha ee wax weeyaan farsamo lagu qurxiyo akhlaaqda qofka bini aadamka ah. waa farsamo qofka gaadhsiisa inay ruuxdiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dadnimadiisa dhabtahay kor noqoto. sidaa awgeed waxaan leenahay cibaado kastoo diintu ina fartay risaala akhlaaqiya bay leedahay. hadaf akhlaaqeed buu leeyahay cibaado kastoo diintu ina fartay. haddii labadaasi ay kala baxaan oo cibaadadu ay dhalin weydo wixii laga rabay, cabsi weyn baa jirta in aakhirana wixii laga rabay lagu waayo. adduunka hadday dhalin weydo wixii laga rabay, tusaale ahaan arkaanul islaamka wax ka mid a haddaynu tilmaamno, yani qur-aanku wuxuu ka warramaa inta badan xikam alcibaadaati wa asraariha waxay yidhahdaan culammadu. fuqahadu inta badan waxay xoogga saaraan cibaadaadka cilalkooda ama shuruudooda ama waxay ku asaxaan ama waxay ku buraan. laakiin culuum tarbiya, culuum taskiya iyadu waxay ka warantaa xikamka iyo gaayaadka looga dan leeyahay cibaadaadkaasi. sidaa awgeed maalan salaada ilaahay markuu ka warramayo wuxuu leeyahy waaqimi الصalaata ina الصalaata tanha can اlfaxshaaءi wاlmunkar. salaada ooga baa la yidhi. salaada maxaa loo oogayaa? ina الصalaata tanha can اlfaxshaaءi wاlmunkar. waa gaayada salaada waxyaabaha marka la oogo laga faa'iidayo waa tan. salaaddu waxay kaa reebaysaa waxa xun ee foosha xun iyo waxa diintu diido, labadaaba waa kaa reebaysaa. min alfuxshi wاlmunkar, alfaxshaa. qofka aan tukanin qofka tukan markaa waa inuu ka dhaqan gadisnaadaa. qofka tukadaa salaada tani wixii ay sheegaysay waa in lagu arkaa. waayo cibaadada tani maalan salaadda waxayna baraysaa kala dambayn. waxaa layna yidhi saf qura wadagala, nin qura idin tukinaya, ninkaasoo quraad daba soconaysaa. astaamuhu markuu idin tusiyo wuxuu samaynayo unbaa ka daba odhanaysaa. saasaa u soconaysaan. waa system qiyaado leh, waa system leh nidaam go-an. wuxuu doono ninku isna kugu wadi maayo, wax go-an buu kugu wadaya. hadduu qaldamo sheeg baa lagu yidho sax,
subxaan allah dheh sidii la rabay maaha sidaad ku wadaa weeyaan waa in la toosiyo idan kala dambayn bay ku baraysaa waxay ku baraysaa tawaaduc iyo sinaan iyo midnimo waa meesha qura ee ay isugu yimaadaan madaxweynaha iyo miskiinka suuqa jooga maalqabeenka iyo caalimka iyo ninka reer miyiga iyo faqiirka iyo classes dadku ma kale mujtamaca muslimka طبقات ma kala leh aan is arag meelahan kale ay dad bini aadamku samaysteen oo dhan waa طبقات nawaadida la taga inta lacagta le naadi gaaray tagaan ha imaninku odhan maayaan shaahay kugu qaali garaynayaan marka waad iska tegaysaa kalgudhaa koobka shaaha $3 la siinaya waa ha noo imanin sida u taalla si kale la isu reebayaa waxyaabahaasi oo kale laakiin halka kan dadka oo dhan baa imanaya mid xoola haysta iyo mid aan waxba haysan mid miskiin ah iyo mid aan miskiin idan tawaaduc iyo akhlaaqda la isbaraya kibirka la iska reebaya marka waxay leenahay cibaadada salaadu waa cibaado maqaasida looga dan leeyahay ay ka mid tahay inay alfaxshaa wal munkar reebto inay dadka dhaqan xumo oo dhan ka reebto sawgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo jooga xadiidka imaamu axmed iyo bayhaqi fii shacabkiisa ay ku soo aroorinayaan sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamayo isagoo nabigu fadhiya calayhi salaatu wasalaam baa nin baa lasoo hadal qaaday saxaabadii markaasa waxaa la yidhi ninkaa hebel ah warniyow ninkani habeenkiina wuu tukadaa bay yidhahdeen war ragga salaatuleelka u kaca maalintiina gacantiisu ma yaro dhowrsana markaa ninkan laba waxoo aan isqaban bay sheegayeen waa ka yaaban yihin habeenna waa tukadaa maalintiina waxbuu yaro qaadaa oo tuuganimaa jirta waa laba aada u kala fog dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi innahu sayanhaahu maa taquul aw satanhaahu salaata riwaayad kale waxaana sheegaysaan hadday jirta buu nabigu leey iyadaa ka reebaya iska dhaafa buu nabigu yidhi salaatuleyl buu tukadaa hadday dhab tahay iyadaa ka reebi doonta dhaqan xumadan kale ay sheegaysaa buu nabigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam يعني قف صلاة الليل وكعي وين ودقة كيسو يسبدلها مركا وحن لنا هاي مفهوم كحقيقي الصلاة دينه وين يمريه لقى الربع دشة وين يدقن حماية أخلاق حماية وحاصلنا نقربتها مثلا زكاة معها عشور ضدك حوق لقى قاضي وحوله وقفكوا عن طوع وبحيه سو كرر لي وبحيه وحول الله تعالى قفكو نفتيس يمالكي سبا إنه كطهره سأوجد بقى إلهي وحو كنت المامية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم حول هذا واحد كقد بقى إلهي للصدقة تاسو تطهير النفوس وصبينسة وتزكية النفوس والمال حول هذا إلهي يقول برارين يقول براريان صدقته ama zakadu siday tahay haddii loo bixiyo waxay yidhahdaan dowladda maraykan waxay cashuur qaado dhan marka la isku daro haddii nidaam xisaabeedka zakada lagu xisaabiyo waxay qaado dhan 3% buu noqonayaa laakiin nidaam xisaabeedka lagu qaado cashuurtaan ahayn ka zakada waayo income-ka cusub baa laga qaadaa iyo waxaad sanadkan macashtay wixii hore lagama qaado cashuurta dad 2 bilyan leedahay oo xoolaha lacagaas sidatid oo 100,000 ku soo gasho 100,000 baa la cashuuraya 2 bilyan waa hantii hore ay ka soo hadheen marka lagu cashuurayo laakiin waxa laga yaabaa 100,000 inay ku cashuuraan 50% ama 40% systemkan waxa uu dejistay nimanka xoolaha leh ayaa inta badan dawladaha u badan iyaga system ka dhigtay waayo miskiinka dhabarkiisa la fuula miskiin ma miskala la fuula lama maqash miskiinka isaga wax meel uma oolin mushaharka yar oo soo qaato bay 40% ka qaadaya adiga waxba ku hadhimayaan inta adiba laga guraya loo dadkan kale oo dhan lacagta badan ma laga qaaday laakiin maal qabeenku lacag badan bixin maayo marka saa loo eego loopholes kalu samaysto investment haduu galiyo waxan baa laga deynaya waxan haduu sameeyo waxan baa laga deynaya shaqo abuur haduu sameeyo waxan baa laga deynaya marka iyagu waxay samaysteen wadooyin la maro ala kulli waxan uga dan leeyahay waxa cashuur la qaado dhan marka la isku daro almost marka haduu zakada qaadi lahaa isku dhadhawaan lahayd
waxay zakadu waa 2.5 waa 2.5% boqolkiiba 2 bar laakiin xoolahaaga oo dhan odhan maysid inta sanadkii hore zakeeyay sanadkan zakeyn ma ay jirto xoolaad haysato dhan baad ka bixinaysaa maxay 2.5 marka haddii la isku eego bay leeyihiin xataa calculation ahaan way isku dhadhowdahay wax kala badan maaha laakiin dadku baa jeclaaday xagga cashuurta inuu cararaan oo xagga zakada iska daayaan systemka inuu dhaqan waxaa zakada loo keenay waa zakadu waa wax uu qofku bulshada uu rabo inuu ku celiyo bulshadan dhexdeedu lacagta ka keenay xoolaheedii buu isticmaalay xoogoodii buu inuu ku celiyo waxay keensanaysaa naxariis inuu dadka u naxariisanayo waxay keensanaysaa dadku inuu noqdo dad walaalo isku xidhan kan faqiirka ana isaga saka laga qaad maayo waxa ma haysto wax zakoobaba haddaanu haysanin isaga laga qaad maayo idan zakadu waa takaaful ijtimaaciya waxa abuura zakadu takaaful ijtimaaciya waxa abuura weeya haddaynu soonka eegno soonka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waxa la idinku waajib yeelay idinka iyo kuwa idinka horreeyba soon maxaa la inoogu waajib yeelay lacallakum tattaquun baa ilaahay kay tattaquu mansilatu taqwa si u gaadhaan ama nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa idaa kaana yowmu sawmi axadikum haddii midkiin uu sooman yahay maanta falaa yarfuth walaa yaskhab yuu hadallada xun ku hadli yuu qaylininoo buuqi adoo sooman haddii lagu caayo ama se lagula dagaalamo waxaad ku tidhaahdaa inni imra'un saa'im war waan soomanay anugu dhin waa training lagu gelinayo bil sanadkiiba ugu yaraan haddii aanad wiigiiba 2 casho gelaynin ama bishiiba 3 casho gelaynin oo ah sida sunnadu ku soo aroortay loogu talagalay maantana ay dhakhaatiirta caafimaadku dee ku talinayaan waayo Nobel Prize-kii 2016kii biomedicalka lagu qaatay waa soonka wiigiiba in 2 casho la soomaa buu nin Japanese ku qaatay bini'aadamkii faa'iido ay leedahay iyo aqoonta cusub oo tawfaajiga la yiraahdo oo tilmaamayay siduu jirku isu cusboonaysiiyo ee unugyada gaboobay uga takhaluso isla markaana uu spare part uga dhigo intuu uu gadilo ayuu haddana uu gal googoynaya spare part looga dhigay jirka intiisa kale marka waxay leeyihiin soonta waxay samaysaa jirkaaga inta liidatare inay disho inta kalena inuu cusboonayso waa lagu dhalinyarooba markaa odayada waxaan leenahay dad dhalinyaro doonaysaan iyo dadkan daada ka carreeya dadkan isdhuubaya iyo dadkan isqurxinaya war sunnadii nabiga raaca oo qurux badnaanaysaan saawgeed nabigu wuxuu leeyahay haddii midkiin uu sooman yahay trainingka markaad gasho waa in akhlaaqdaada iyo dhaqankaagu isbedelaan wixii loo soomayay midhaheeda waxaa ka mid ah inaad baratid dulqaad inaad baratid iyadoo lagula dagaalamayo inaad qabowdo qof degan noqoto aad tidhaahdo raalli ah anigu waan soomanahay ninkan soo xaytay gafeerka kuu duubanaya waxaad leedahay anigu waan soomanay raalli ah ka ku caayay waxaad leedahay anigu waan soomanahay adigu qaylin maysid oo buuqi maysid dagaalami maysid waxay sheegaysaa markaa mafhuumka soomka laga rabaa waa inuu dhaqankaaga wax ka bedelo masaa'ilkii ajarka iyo cibaado inay tiyo ilaahay inay raalli geliso iyo waa meesheeda laakiin waxaan ka warramaynaa aahaarta ay ku leedahay nolosha qofka bini aadamka ah salaadu aahaar bay ku leedahay soonku raad buu ku leeyahay awgeed buu nabigu wuxuu tilmaamayay qaar baa jira soomanoo soonkooda aan u kordhinin gaajo iyo haraad mooyaane hadduu daa midhihii soo saari waayo oo sidii la rabay noqon waayo gaajo iyo haraad baad ka qaada haddaynu rukunka xajka eegno ilaahay wuxuu leeyahay alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj wama tafcaluu min khayrin يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقون يا أولي الألباب حج هو بلغو أنبا إلى حيري قفكي حج حداه يوافحمكو هدلين يفاسق نمو بحن فعلي عمل طونا مرن يوغلين انتو حجك كتشرو حجك مركا الله قالوا قفك مسلم كايو حج تقو وحتى يكو أرض السلام dhul la yiri dadkiisa daayay geedkiisa qodaxa ka jaray geedka aan lagu ogolayn inaad la gajabiso qof bini aadam ay naqshida iyo inaad wax yeesho iyo daa waxaad ku jirtaa waliba Soomaaligu mala uu u baahan yahay meel aan la istaataabanaynin dad kulul oo dagaal uniya ay wada
meel qabow aan cidba istaabanayn inuu tago wuu u baahan yahay. xajka waxaa la yidhi intaad ku jirto dadku waa sawaasiya, waa siman yihiin. boqor iyo mid ka hooseeya laba maroo cadcadoo aan tollayn baa la sitaa. iminka maryaheennu waa kala nooc, qaabka loo tolaa waa kala wada gedisan yihiin, ninba sibuu quruxda moodo u socdaa. marka waxaa la yidhi laba aan tolliimaba lahayn oo la isku maro unu nin waliba isku duuduubo oo inta badan isku midabba ah, inkastoo aanu midabku waajib ahayn, inta badan caddaan wada ah ayaa dadku xidhanaya. waxa kaaga daran, waxaad gelaysaa nolol wax waliba kuyuu yihiin. habeenkii baad toosaysaa, masqusha kuyuu baa loogu jiraa, cunada kuyuu baa ilaa dhowr milyan oo qof baa meel wada degan oo isku timetable ah, mar qura wada guuraya, mar qura wada seexanaya, mar qura wada tukanaya, mar qura waa ummadda dhan oo hal shaqo wada qabanaysa. timetable-koodu isku mid yihiin. waxay noqonaysaa wax walba inaad kuyuu u gasho. cunada kuyuu u gal, salaada kuyuu u gal, masaajidka kuyuu u gal, wax walba inaad kuyuu u gasho. kuyugaasi wuxuu keensanayaa in la is ixtiraamo, in qofka jilicsan la horumariyo, in la isu naxariisto. wayu'thiruuna calaa anfusihim inay meesha timaado, in la isu sabro. bannaan baa wada seexanaysaa. halkan nin waliba qol gaaruu leeya u xidhaa. waase islaamtu tidhahdaa carruurtana amase qofowna ha hadli, odaygii baa hurday. halkoo bannaan baa la wada seexdaa. mid qarwaya, mid jarriqsanaya, mid waa halkiinaasaa wada joogaysaa dhammaantiin. ma leh meel gaaroo aadeen seexata ma leh. waa training lagaa soo saarayo ah bini aadamka saa loola noolaado. intaynan ka warramin ajarka la helaya iyo sidaa dembiga loo dhaafiyo kaa loo dhaafo, waxaynu tilmaamaynaa cibaadaadkani inay raad dunawiya leeyihin. raad dunawiyo inta adduunka la joogaa inay leeyihiin baa laynoo tilmaamaya. waa meel ay isugu yimaadaan bini aadamka oo dhami, mid madow iyo mid cad iyo mid yalowaba la joogo, kala sarrayn lahayn, waxba u dhaxaynin, dadku uu sidaa u wada socdo. ayuha alaxiba, markaa waxaan leenahay cibaadaadkeennu midhaha laga rabaa waa inay tamar akhlaaqiya yeeshaa. iimaankeenna midhaha laga rabaa, shajaratuliimaan oo dhami baynu leenahay, iyadaa cibaadadu ku dhisan tahay, iyadaana akhlaaqdu kusii dhisan tahay. sidaynu u kala iimaan badannay waa inaynu u kala akhlaaq badannay markaa. waayo akhlaaqdu waa midhihii iimaanka. iimaanku hadduu daciifo, waxaa la daciifa midhaha ka dhalanaya. waxaa la daciifa cibaadaadkii, waxaa la daciifa amaradii dhalanaysay akhlaaqiyaadkii. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa xaasinuhum khuluq. mu'miniinta waxa ugu iimaan dhammaystiran kuwa ugu akhlaaq fiican. waayo iimaanku dee wuxuu ku xidhayay baynu leenahay akhlaaqdii uu samaynayay. saa daraaddeed haddii uu iimaankaagu weynaado, macnaheedu waxa weeyaan in akhlaaqdaadiina ay weynaatay. iimaankaagu hadduu daciifo, akhlaaqdaadana waa daciiftay. si awgeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamay aliimaanu bidca wa situun aw bidca wa sabcuuna shucba. iimaanku waa dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo 70 qaybood. waxa u sarreeya baa la yidhi kelimatu tawxiid. waxaana ugu hoosaysa maxay? imaatatu aladaa can اطariiq, jidka in qashinka laga daayo. haddaad aragto ummad streetskoodu ku daafad tahay, dacfuliimaan baa haya. suuqeennu hadduu ku daafad noqdo, innaga ka Soomaali ahaan dhib bayna haysato, iyo dad badanoo muslimiinta kale ka mid ah. gal Robert Fiske la yidhaha wariye caana, kontaneeyo sane wariyaa, ayaa wuxuu yidhaahdaa qofka muslimkaa buu yidhi haddaad gurigiisa gasho waa guryaha dunida ugu nadaafad badan la buu yidhi. waddada hormarta haddaad eegtana waa meelaha ugu foosha xun la buu yidhi. su-aasha isweydiinta le buu yidhi maxay ku dhacday? maxay ku dhacday buu yidhi gurigana wuxuu rumaysay inuu isagu leeyahy waddadana inaanu lahayn. wasaynu rumaysanay soo maaha? gurigaaga intaad soo fiiqdaa waad qashinka waddada ku soo saydhaysa. gurigana waad ka ilaalinaysaa, waddadana waad geynaysaa. nebigu wuxuu leeyahy iimaanka halka u sarraysa waa laa ilaaha ila allah, halka ugu hoosaysana waa maxay? waa imaadat aladaa can اطariiq. waxa dadka dhibayo aad jidka ka dudo. walxayaau shucbat min aliimaan buu haddana nebigu sii raaciyey. xishoodkuna waa gabal iimaanka ka mid ah. haddaad aragto ummad xishoodku ku yaraaday, iimaankoodii baa dacfi ku jira. ummad xishoodku ku yariyay haddaad aragto, iimaankaa dacfi ku jira. waxuu nabigu tilmaamayaa laysa almu'minu biاطacaani wala اllacaani wala اlfaaxish wala اlbadii.
mu'minku ma aha ku dadka dura inagoo ammaan baynu haysanaa iyo kaftar inay tahay waa isjareexayna buu leeyay yaa ku yidhi wax jurxi samee waan dhaawacay ilan jareexadan waa af carabi unbaad wadaaye yaa ku yidhi dadka dhaawac ammaan waxaynu haysanaa qofba qofka kale inuu mudo bale dhaqankeenna waxaa ka mid ah qofka bini aadama intaad eegto ayaad halkuu iin ku leeyahay baad magac uga dhigaysaa madaxay iyo gacmay iyo dhegay iyo waxaynu la baxnaa waa maxay laangare waa qofkaad eegaysa meeshaad tiraahdaa leele halkaasuu iin ku leeyahay ayaad magaciisa ka dhigaysaa waa ceeb mu'minku طacaan maaha la yidhi qof caytaba maaha oo dadka dura lacaan maaha qof wax lacnada maaha faaxish maaha qof afxun maaha badii maaha qof يعني أخلاق حنو عيتما معها النبي محمد تلمامي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ورك آخر يا الله رميسرو أما خيرك هذا لما آمو لما أردن قف ولو با أما خيرك هذا لما آمو وحلو حدي محي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عدي إلهي الرميسن هي مال انت آخره macnaheedu waxa weeyaan haddii iimaan jiro waa inay masaladani jirtaa waa inuu jiraa dadku ama khayrun ku hadlo ama inuu iska aamuso waa inay jirtaa cagsigeeda axaadiis iyo aayaad badan baa baabkaa ku soo arooray wakhtigu uu koobaya markaa inaan idin tilmaamaaba uma doonaya ayaa ku soo arooray baabka iimaanka iyo in la isku xidho akhlaaqda tan cagsigeeda waxaa nebigu tilmaamaya dacfu liimaanku midhaha ka dhasha inuu dhaqan xumadayay ضعف الإيمان كمرا كدشا إنه أخلاق حمدي نبي أوحى عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله وفي بعض الروايات خاب وخسر قيل من يا النبي يقول لي هي إلهي بان كدار تمر مينين الله كدار تمر مينين الله كدار تمر مينين إيمان لقى مهلين أما إيمان كامل أماله إلهي الرسول كيسي واكوما بالله يرقف كني كان شبي يعني إيمان كيات كان فيه سا لو دي دنيا واكي قال الذي لا يأمن جاره بوائقه وكان شاركيس وشاركيس كان نبت قليم النبوي أما هالنقطة قرية إنه كشارمي أما هالنقطة قبائل إنه كشارمي أما هالنقطة مقالوية إنه كشارمي أما هالنقطة قبلية ودنا إنه كشارمي قفك أن شاركيس نبت كهليني oo shar ku wada kaasi iimaan ma leh buu nabigu tilmaamaya yani hadduu iimaan fiican jiro sharkaagu wuu nabadgeli lahaa waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay jibriil siduu iigu celinayo warka ilaa aan u maleeyay buu nabigu yidhi sharku in la odhan doono way isdhexlayaanba xadiidka wada taqaanii jibriil warka siduu iigu celiyey ee uu igu waday waxaan mooday buu nabigu leeyahay in la leeyahay jaarku ha isdhexlo innagana waxaad arkaysaa kii beerta lahaayoo ka kale kugu durkaya kii guriga lahaayoo guriga kale ku durka waxaynu waa isku durg iyo isboob iyo xoog iyo qofka kugu xiga inaad wax ka qaado waxa uu nabigu tilmaamay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min ka zinaysanaya ma sinaysto marka uu zinada ku dhacayo isagoo iimaan leh ka khamriga cabaya khamriga ma cabo isagoo iimaan leh ka tuugaahi wax ma xado isagoo iimaan leh ka wax boobaya buu nabigu yidhi walaa yantahibu nuhbatan daata sharaf waa inta badan qolyahan dadka xoogga wax kaga qaada ama khiyaamada dowladaha haysta iyo waxa booba wuxuu nabigu leeyahay boob ma sameeyo boobkaasoo dadku isha la raaco bal wuxuu daara dhistay la yidhaahdo وهو مؤمن سوى مؤمنة وحمحذا ابو النبي يقول ولا يغل غلولك ووحى ودلي سيدا الجهاد كمركا لا قالوا فيق لا سو قاطو اما غنيمه لا وحا لا ودلي اذا ددك لو قيبنا قيبتاada qaadanaad adigu sii gurto yani xoolaha dawladda oo kala kamida dadka oo dhan baa ka wada dhaxaysa dabeetana aad ka qaado فإياكم buu nabigu leeyahay xadiis saxiixaynku ku yaala xadiisku muxuu tilmaamayaa iimaanka iyo acmaashan inay isku xidhan tahay
marka haddaad aragta acmaashan oo caadi noqotay macnaheedu waxa weeyaan dacfu liimaan baa jira. acmaashan haddaynu rabno inaynu saxno dadka iimaankooda waa inaynu xoojinnaa waddada ugu gooban. saa daraaddeed ambiyadii ilaahay soo diray waxay u yimaadeen bulshooyin kala nooca, qaar dhaqaalaha ka xun yahay, qaar akhlaaqdu ka xun tahay, qaar siyaasaddu ka xun tahay. ambiyaduna kuwaasay u yimaadeen. qaar fircoon baa loo soo diray oo boqor dadka laynayaa, qaar waxaa loo soo diray qoomuluudkii, qaar waxaa loo soo diray nebi shucayb oo qolo mikyaalka iyo miisaanka iyo wax ka takhfiifinaysa. laakiin wax oo dhan waxa la yidhi xaggee ka bilow? iimaanka. ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru. maxaa iimaanka looga bilaabayaa? midhaha ka dhasha in waxa kani joogsanayaan. iimaanka midhaha ka dhasha ayaa ah in waxa kani joogsanayaan. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa isagoo jooga agtiisa waxa lagu soo qaaday gabadh. masala ilaahay rasuulkiisa iyo gabadha heblaayo la yidhaahdaa waa gabadh salaad badan oo soom badan, laakiin way carab dheertay baa la yidhi oo jaarkay dhibtaa. markaasuu nabigu yidhi hiya fi naar, naartay ku jirta, naartay gelaysa. wixii soon iyo salaad la sheegay haddana nabigu wuxuu leeyahay naartay gelaysa. markaasaa waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo haddana waxaa lasoo hadal qaaday gabadh kale. waxaa la yidhi waa gabadhaan soonna badnayn, sadaqana badnayn, salaadeeduna badnayn, laakiin inta yare aqidka ay hesho iyo waa sadaqadaysataa, jaarkeedu waa ka nabadgalaa. yacni waxoogaaga yare guriga yaalla wixii ay jaarka siin karta ama masaakiinta siin kartana waa siisaa, waana carabkeedana cidda kuba dhabto. waa gabadh miskiinad carabka ka ah. hiya fi ljanna buu nabigu yidhi. yacni waxay tilmaamayaan bay culammadu yidhahdaan axaadiista tani salaad iyo soonkii iyo cibaadaadkii hadday akhlaaqda fiicnaysiin waayaan in iyaga khalal ku jiro. markaasaa la yidhaha naar bay gelaysa. salaaduba yay badanin iyo soonku iyo tirada yuu badanay xataa inta waajibka ah hadduu yahay, laakiin uu tii la rabay yahay inay dhaqanka wax ka bedelaysaa la tilmaamaya. si awgeed baa waxaa la leeyahay jannay gelaysa. xadiidka imaamu axmed baa wariyay waana saxiix baa culamadu ku tilmaamaysa. idan ayuha alaxiba, waa soo koobayaa ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa dadka mu'miniintaee liibaanay waxaa lagu sifaynaya inay yihiin kuwa cibaadadooduna fiicnaatay, midhihii cibaadada ka dhalanaya dhaqanka iyo akhlaaqdaana ay wanaagsanaadeen. sana ilahay wuxuu leey qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. waa cibaada. mu'miniin baa liibaantay. waa kuwe? waa kuwa salaadooda ku khushuuca. markaasa haddana waxa lagu xigsiiyey akhlaaq. waladiina hum can illagwi mucriduun. waa kuwa laqwiga ka jeesta baa la yidhi. markaasa haddana lagu xigsiiyey cibaado. waladiina hum lizakaati faaciluun. markaasa haddana lagu xigsiiyey akhlaaq iyo mucaamalaat. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأخلاق معاملات يدقن. مركز هدنا لو حكسي أخلاق. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وكوا أمانة دي عهد قود الراعة كذب هدنا عبادة لو ختمه. والذين هم على صلاتهم يحافظون. culamadu waxay yidhahdaan waxaa cibaadadii iyo akhlaaqiyadka laysu dhexgeliyey waa inuu iimaanku labadaba dhalo. qad aflaxa almu'minuun baa la yidhi. iimaankaa la sheegay wuxuu dhalayo ee ka soo baxayaa ah dhaqankan fiican iyo cibaadadan fiican. kuwaasaa ilaahay yidhi waa kuwa jannatulfirdowsa dhaxlaya. ayuha alaxiba, nebigu wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minkaah dhaqan wanaagiisa iyo akhlaaq fiicnidiisa inuu ku gaadhayo darajada kuwa saa'imiinta ee qaa'imiinta ah. kuwa maantiina salaad u taagan, maantiina soon u taagan, habeenkiina salaad u taagan boosaskay gaadhaan, dadka akhlaaqda fiican lena way gaadhaan buu nabigu leeyahy. dii dhaqankaagu uu fiican yahay waxaad la baratami kartaa dadkaas zuhaadda ah ee intay iska zaahideen habeenna salaadun u taagan, maalinna maxay salaad u taagan, habeenna salaad u taagan, maalinna soon u taagan. ee zuhaaddaasi ayaad la baratami kartaa bixusni khuluqik. waxaan ku soo koobayaa markaa
akhlaaqda aynu ka warramaynaa waa hamarada iimaanka iyo cibaadaadku ay dhalaan. waxaan ku gebagabaynaynaa waana wax la baran karo. waxaa laga yaabaa dadka badhin ay yidhaahdaan waar anigu waan carab badnoo qof casabiya baan ahay. yees, dadku wuu kala degan yihiisa ilaahay u abuuray, waa dhab. dadku wuu kala fahmo badan yahay sida ilaahay u abuuray, waa dhab. dadku wuu kala deeq badan yahay sida ilaahay u abuuray, laakiin haddana waa la baran karaa. ninkii wafdigii cabdulqays ka tirsanaaye nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam, wuxuu nebigu ku yidhi laba dhaqan oo ilaah iyo rasuulkiisuba jecel yihiin baad leedahay. markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waa maxay? ma laba dhaqanoo wuxuu u sheegay alxilmu walanaa, dulqaad iyo kaadsiiyo. riwaayaadka qaarkood say tilmaamayaan kaadsiino, qof wax hubsada, dulqaadna leh. markaasuu yidhi ma laba anigu aan la imiba mise waa laba ilaahay ugu abuuray? nebigu wuxuu yidhi waa laba adiga ilaahay kugu abuuray, dhaqan ahaan baad u dhalatay. waa dhabo dadka qaarba sidooda biyo madaadshow ah, qaarna waa layli buubaalah. dadka badh waa soo reermiiga ma kala taqaaniin. awrka yaree la layliya hadda dee sanqadhaa laga ilaaliyaa. haddii uu weel sanqadhaya ama wax sanqadhaya la saaro uu jejebinaya waa la buubaya. laakiin reerku gurgurshaa ama hayin ama awr buu leeyahay farsamo yaqaan oo degan oo waxaa reerku sita ee sanqadhoo dhan la saariyo carruurtaba. biraha yaryar iyo weelka iyo waxaan sanqadhaya qalaxqalaxloo dhan iyo carruurta iyo waxaasoo dhan awrkaa guradiisaa la saaray, waayo waa awr hayinoo waxaas ima dhaqaajiyaan. marka dadku sidooda ayaa badhhayinkaa u yihi ilaahay ku abuuray. dadka badhna marka hore yihiin layliga buubaalka ah, laakiin layliga buubaalka hadde waa la tababari karaa. haddii muddo lagu wado isna wuxuu noqonayaa marka dambe maxay hayin. saa awgeed buu nebigu wuxuu yidhi inama alcilmu biاtacallum wainama alxilmu biاtaxallum waman yataxara alkhayra yucط. nebigu wuxuu tilmaamayaa war cilmigu barashu ku yimaadaa, dulqaadkuna dulqaad isbaris buu ku yimaadaa. nafta inaad train garayso. waxaa laga yaabaa marka hore inaad muruqyo buurayn, laakiin haddaad meelahan lagu cayaaro gasho berri wuxuun baa lagu arkaya adigoo maxay muruqyo goostay. socayka maaha, training baa soo saaray. naftuna waa sidoo kale. naftana haddii tababar la geliyo way qaadataa, sidaa jidhkaaga sare haddii tababar lagu geliyo uu u qaadanayo. dadka badhba inta laga kuwa feedhtama intan sare waa dad waaweyn, laakiin laba adinoo dhuudhuuban bay leeyihin, waayo xagga hoose tarinkooda kuma jiro. kuwa kubadda cayaara hadday garanka iska bixiyaan waa feedho yaryar inta sare, laakiin laba adinoo burburan bay leeyihin, waayo intan baa laga train garayay. kuwan taniska cayaara maarata labada gacmood way kala weyn yihiin. gacantu baasha ku cayaaraabaa ka weynta kale, way kala xoog bataan oo tabaa dhisantaa. bini aadamku waa saa loo train gareeyo. markaa dhaqankuna waa sida loo train gareeyo. iska sii daada tani ma socoto. carruurtan la sii daynayo iska daa wuu caqliyaysan, iska wuu caqliyaysani ma jirto. qofka bini aadamka waa in la train gareeya, la tababaraa ilaa iyo hayinka ka noqonayo, jidka ka qabsanayo. markuu yaryay lagu soo bilaabaa schooling systemka waxaa rasmiga laga rabaa waa in qofka la tababaro. saa daraaddeed baa waxaa la yidhaha wasaaradda maxay waxbarashada iyo wasaaradda barbaarinta iyo barbaarinta waa maxay waa wasaaradda tarbiya wa tacliim. iyadaa ka muhiimsan tacliimka. tacliim aan soo saaraynin akhlaaq soo saaraynin faa'iida ma leh. macluumaad madaxa lagu guray oo aan dhaqanka waxba ku lahayn qiimo badan ma leh. diin madaxa lagu shubto ee aan dhaqanka ka muuqanayn qiimo badan ma leh. wixii laga rabay ma aha. wax la-aan odhan kari mayno, laakiin wixii laga rabay ma aha. saa awgeed waxaynu leenahay waynu istrain garayn karnaa, oo aamusnida waad baran kartaa, oo deganaanshiya waad baran kartaa. waa laga yaabaa qofba wakhtigay ku qaadataa inuu ka kale ka bato. inta aad waxaa qaadanaysaa uskaga imika markuu maradaada ku dhaco, uskaga badhna waxaa ku filan biyo yaroo cad inaad saa ku tidhaahdo, badhna saabuun baa ku filan, badhna saabuni kuma filan, biliij iyo wax kale inaad ugu dartaabaa ku filan.
يعني uuska ku kolbana siduu u adag yahay bay ku xidhantay sidaa waxaa la mid ah dhaqamadeenna dhaqamada genetically ugu abuurani waxay sababayaan markiiba biyaha yara lagu maydhay oo qura in yar inta la sheegay inay markiiba ay socdaan dhaqamada laakiin uu yara baahan trainingku waa inaan ilaa village-ka gaadhsiiyaa si aan qof saxan u noqon karo hadalka badani faa'iido badan ma leh war kooban oo la fahmaaba ayaa macna samaynaya warkeennoo dhammi maanta wuxuu ku kooban yahay iimaanka qofka iyo diinta qofku meesha ay ka muuqatee ka midha dhashaa waa dhaqankiisa waa akhlaaqdiisa waa siduu aadanaha kale ula dhaqmayo waa siduu rabbigii ula dhaqmayo waa siduu xoolaha ula dhaqmayo waa siduu environmentka ula dhaqmayo iyo bii'ada ku noolyahay waxoo dhammi waxay ku salaysan yihiin iimaankiisu intuu leegyahay marka iimaankeenan aan korinno midhihii ka dhalanayayna aan raadacayna inaynu xaqiijinno sala allahuma calaa muxamadin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin